oo ah geesiyaashii koonfur galbeed ciidamadii sharciga ahaa oo daacadda ahaa oo run ahaantii reer koonfur galbeed guusha u soo hoyeen aadaa u mahadsantihiin kun jeer ayaa mahadsantihiin run ahaantii waxaan gaarnay guul la taaban karo ayaan gaarnay cadowga gudahaad u gasheen waa soo burburiseen haddana xeelad dagaal darteeda magaalada looga soo baxay waa lagu noqonaa haddana waa lagu noqonaa waa la qabanaa wixii cadowga ku jirana waa weli waa la jijabinaa run ahaantii cadowga dhibaato badan ayaa gaartay kuwii soo duulay oo xamar laga keenay iyo kuwii la socday oo soo kaxeeyey dhibaato xoog leh ayaa gaartay guusha ilaahay baana siiyey alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin qof soomaaliyeed kuma talagelin inaan dilno qof soomaaliyeed kuma talagelin inaan ku duulno laakiin annagaa nalagu soo duulay dowladdii jirtay oo koonfur galbeed maamulkeedii dhisan yahay ayaa la burburiyey lagu soo duulay maanta waad og tihiin dadkeeni shacabkeeni geeseenay degan yihiin 10 kun oo qoys 20 kun oo qoysa ka soo baxday magaalada Baydhabo waa ogtiin Soomaa fadhi ma noo yaal dadkii jidka loo taagan yahay guriga loo galoyaa qofkii la arkaa la baadoyaa qofkii rabaa la diloyaa shacabkii koonfur galbeed aad ogeeyeen magaaladii ay amarneed oo nabadeedii aad ogeeyeen xasan sheekh aadan qax ayaa dalka qaxiyay aadan qax ayuu horseeday koonfur galbeed hal shay ayaa rabaa inaan kula dardaarmo hal shay ayaa rabaa inaan kula dardaarmo qof shacaba oo aan dhibaato geysanin inaanan waxba loo dhimin annagu waxaa taarget noo ah sidii hadda oo kale cadowgaa taarget noo ah waana lagu soo duulay guryaheenaa lagu jiraa dhulkeeniyaa lagu jiraa qof aan waxba naga ficnaan xasan sheekh 77 xildhibaan darteed ayuu dadkeeni iyo dalkeeni u barkici sharafkeena u baabiyey ma ogolaanaynaa sharafteeni in qof kale war muxuu yahay na yidhaahdo oo dhulkeeni noogu yimaad ma yeelaynaa